السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ummadda islaamka ee muslimka ee Soomaaliyeed ee cid walba leh kulli maadaama aan Soomaali ku hadlayo Soomaalidu ma oran laakiin muslimno dhawaan salaamaya. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta horta anigu kulli war farxad leh oo gaarna waan hayaa oo ah maanta Kaabul farxadda ka dhacaysa ee ciidamada Taliban ururka yar ee wadankiisa xoreeyay ee islaamku soo dabaalay isagoo on wax gaalihi ka dambaynin xitaa dadka caawinaya islaamkiina ay dad dhuumanaya yihiin ama isqarinaya yihiin ayaa waxaan leeyahay horta guusha ay gaadheen Ilaahay ha u barakeeyo wadankoodana Allah u barakeeyo islaamkana Allah ku dhaqo. maanta kooxdaasi waxay shabahdaa kooxdii Yawm Badr ee maartaanay guushii cajiibka ahayd kala soo hoyday Badr ee Madiina la yimiday ee gaalo oo dhan candhuufta dib u liqday haday yuhuud hayaan iyo haday mushrikiinta carab haayeenba ay maartaanay dib u garineen munaafiqnimada bilaabeen ilaa munaafiqnimadu dagaalkii Badr dabaliyo bilaabantay dad xorho muslimiin horta waa kuwaas ee inaga maaha korkaan ilaahay kulli muslim waana laakiin muslimnimadeenu waxay u badan tahay afka u badan tahay maxaa yeelay haddii maanta dadkeena muslimka ee caalamka jooga khaasaan nimanka carabta la yidhaahdo maanta iyo weliba dahabo maartay Soomaaliduna carabtun bay ka mid tahay waxay u badan yihiin haddaad sii tixraacdo inay mar walba gaalada ku kalsoon yihiin oo ay maartaanay si fiican ugu hoggaansan yihiin maxaa yeelay waxaad arkaysaa inaan ogolayn quraanka kariimka ee masaajidda ku akhriyayno inaan ogolayn wax alla wax xukun u sheegay inaan waxba ka ogolayn ilaa salaadan wajiga dhulka saarna mooyaane malaha waxba oran lahaa haddii salaada xitaa daaya la yiraahdo inaan dayn lahayn baaba iska dhici kartaba maxaa yeelay anigu waxaan aad iyo aad uga yaxyaxsanahay reer galbeedka sida loo jecel yahay oo weliba wadaadadii ay islaha dacwadahay barteen oo dad cilmi islaam bartay weeyaan oo dad maartay dariiqa islaam ku soo dhici doona weeyaan lahaa ayaaba ugu orod badan xagga gaalada nasiib darro weeyaan laakiin maanta anigu waxaan leeyahay nin Allah naxariistay la oran jiray Sheekh Xuseen Abraar oo magaalada Boorama ku noolaan jiray berigii la laayay culimadii 75 la laayay ee xamar lagu laayay ayaa idaacadda waxa laga sii daayay wadaad xumayaal bay ahaayeen isagoo is ogeyn ayuu wuxuu yiri wadaad xumo kuwa ma ahna inaga wadaad xumo abuur aan maanta halkii baan joogaa maanta nimanka islaamka dhab u sheegan karay waa nimankaas inagu waxaan nahay dadka islaamka afkana ka sheeganaya qalbigana Mareykan iyo Ingiriis iyo Faransiis iyo reer Yurub ka ah ayaan nahay Ilaahay noo saalo laakiin wuxuu yiri sheekhi loran jiray sheekh maarta Abul Hasan Nadawi diintii waxaan haysanaa wali suuradeedii oo saaga maarta looga sameeyay buri leenta Portugalka iyo maartaanay tufaaxa iyo caagin u yihiin hadana muusiga wagihiin tufaax wagihiin suuradaasana isna buuri laakiin xaqiiqadii ma hayna buuri hadana wuxuu bal suurada lafteeda maartaan horta aan taawun xajina buuri wax kala ma hayna taa waxa la horta nimanka la dhaad Taliban ayaan maanta anigu bogaadinayaa waxaan leeyahay Ilaahay ha u barakeeyo dawladoodaas waxaan arkayaa maanta oo aan aad maartay BBC xitaa uga dhageysanayay reer galbeedkii waa argagixisay la dagaalamayay oo u borotamaya hadda ictiraafkoodii u borotamaya ayaa muslimkiina muxuu sameyn Masar maxay sameyn Sacuudi muxuu sameyn Khaliijkii muxuu sameyn inuu Soomaaliya baan noo deeyay waxa ka damaba ka siin Allah muslimiintii waa weena maxay sameyn laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa inay u tahay islaamkii aakhir zamanka oo Ilaahay nabigeena noo sheegay kaleey salaatu wasalaam inuu maartay bilaamayo ayaan rajaynayaa taasi waxaan leeyahay shacbiga Afghanistan Allah haneeyo
الله بركايو إننا طريقة سوكلا الله إنه كانونيو